Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome to Bio Academy. Halkaad nagala socotaan waa page-kan ku leenahay Facebook ee Bio Academy iyo YouTube channel-keena Bio Academy. Waad ku mahadsantihiin la socoshada iyo daawashada cashiradeena. Waa maskiinkii Axmed Muumin iyo maadada physics-ka oo mar kale idin soo laabteen. waxaynu duubaynaa cashir ka mid ah cashirada fasalka 12aad gaar ahaan chapterkiisa koowaad ee loo yaqaan oscillatory motion waana cashirkeennii afraad ee fasalkan maanta hadduu alla idmo insha allahu tacaala cashirkeenna wuxuu la xiriiraa waxa loo yaqaano energy of simple harmonic motion energy of simple harmonic motion tamarta socodka loo yaqaano socodka isku dubaridan ee fudud energy sida caadiga waxa lagu qaataa dugsiga dhexe tamar waxa loo yaqaanaa is the ability to do work waa awoodda shaqo lagu qabto is the ability to do work waa awoodda shaqo lagu qabto there are two kinds of energy waxaa jira laba nooc oo energy ah markii la joogo simple harmonic motion socodka isku dubaridan ee fudud markii la joogo waxaa jira laba nooc oo tamar ah wija kuwa kala ah potential energy tamarkeed and kinetic energy iyo tamar socod waxaan ognahay forms of energy inay aad u badan yihiin potential energy kamida kinetic energy kamida heat energy kamida electrical energy kamida food energy kamida energy guud ahaan waxa la dhahaa is the ability to do work waa awoodda shaqo lagu qabto hadda hadalkan aniga idil hadlaayo it means waxay ugu jirto tamartaas ay iga hadashiinayso low saddex maalmood aan raashin cuni lahayn belief hadalkayga si hadda idin soo gaaray xoog idin ku soo gaaray ama waveska uu ku socdo hirarka uu ku socdo hirar lamida ma ku soco laha never waxa iga hadashiina waxa waa energy iyo tamar uu keedsan waxaana marka energy waxa la is the ability to do work waa awoodda shaqo lagu qabto waxaa jirta marka la joogo socodka isku dibaridan ee fudud laba nooc oo tamar ah waxayna kala yihiin potential energy oo tamarkeeda and kinetic energy tamar socod mid walba qeexitaankiisa aan aragno potential energy be tamarkeed maxaa la dhahaa is the energy stored waa tamarta ku keedsan in an object shay when the object is at rest markuu shayga ku jiro xaalad nagaasho ah oo non movement ah markuu ku jiro usan dhaqaaqaynin shayga tamarta ku keedsan waxa loo yaqaan potential energy kinetic energy maxaa la tamar socod maxaa la is the energy stored waa tamarta ku keedsan in an object shay when the object is in motion markuu shayga ku jiro dhaqaaq ama socod uu ku jiro waxaan filaynaa kala fahanay oo kala saari karno potential energy iyo kinetic energy potential energy waxa dhigi karnaa waxa waaye tamarta shayga markuu ku jiro rest nagaasho markuu ku jiro kinetic energy waxa waaye tamarta shay markuu ku jiro xaaladda motion socda markuu ku jiro bal sawirkan fiiri hadda tani waa moolo ku xiran maas waxay sameynaysaa up down marna kore u kacay marna hoose u degay shayga markuu socod ku jiro tamarta uu leeyahay magaca u bixinay waxa loo yaqaanaa kinetic energy loo yaqaanaa markuu nagaasho ku jiro equilibrium positionka bardheelitiranku ku istaagan tamar uu leeyahay waxa loo yaqaanaa potential energy ama markuu labada cirif mid kamid ku istaago waxa loo yaqaanaa potential energy sawirkan kala jiifka fiir kan wuxuu ahaa vertical horizontal kan fiir extension markii lagu sameeyo moolada oo la jiido ee fidsanto bartan markay taagan tahay waxa loo yaqaanaa tamarta ay leedahay potential energy markii laabanayso socodka ku jirtana waxa loo yaqaanaa tamarta ay leedahay kinetic energy kan fiir compression lagu sameeyo cadaadis markii la riixo meesha ugu dambaysa markay taagan tahay oo aysan meel kale u dhaqaaqi karin tamarta ay leedahay waxa loo yaqaanaa potential energy markii la soo daayo maxay sameeyeen way dhaqaaqaysaa dhaqaaqaysa markay ku jirtana tamarta ay leedahay waxa loo yaqaanaa potential energy kinetic energy tamar socda loo yaqaanaa waxaana marka si kooban kinetic energy potential energy waa laba nooc kamid ah tamaraha potential energy waxa loo yaqaanaa shayga marka uu nagaasho ku jiro tamarta uu leeyahay kinetic energy waxa loo yaqaanaa shayga markuu socod ku jiro tamarta uu leeyahay waxaan isticmaali doonaa inta cashirkan joogno marka du'aalaad insha Allah taala formulayaashan
potential energy waxaa lagu helaa half kx square maadaama displacementiga cirif uu taagan yahay waxaa qaadan doonaa x kinetic energy waxaa lagu helaa half mv square v square na xusuusnow waxay joogtaa maximum sababtoo ah speedka ama xawaaraha waxa loo yaqaano wuxuu maximum yahay markii shayga uusan joogin waxa loo yaqaano end points markuusan joogin energy guud ahaan ama total energy waxa lagu helaa half k amplitude square maadaama displacement ugu badan ee shay uu sameyn karay tahay amplitude speed waxa lagu helaa marka waxa lagu helaa k of m oo lagu dhuftay amplitude square laga jaray displacement square oo la geliyay square root maximum speed xawaaraha ugu badan waxa lagu helaa k of m oo lagu dhuftay amplitude square formulation ku shaqeyn doona haduu aaleed insha Allah taala nageeya bal tusaalaha koowaad ee cashirkan ahna tusaalaha sagaalaad ee chapterka ana isla aragno waxay noo qoran a block with a mass shay la cuf 0.5 kg yaa sitting on wuxuu ku xiran yahay frictionless surface ooga aan islis lahayn mar walba oo simple harmonic motion ka hadlayno waxaa soo qaadanaa frictionless surface ooga aan islis lahayn oogadu haddii islis lahaato waxaa dhici doona shayga socodkiisa carqaladeed doonta waxaa la rabaa marka hadda socodka moolada inaysan carqaladeenin waxaa la marka frictionless surface waa ogo aan islis lahayn waxaa la marka a block with a mass shay cufkiisu yahay 0.5 kg ee sitting on wuxuu ku xiran yahay frictionless surface ooga aan islis lahayn connected waxaana lagu xiray shaygii to a light spring moolo fudud ayaa lagu xiray that has spring constant taa oo leh sugnaan moolo oo dhan 180 newton per meter leh if haddii the block is displaced cufka la barabixiyey 15 centimeter 15 centimeter la barabixiyey xagee from its equilibrium position bardheelitirankiisa laga barabixiyey and released lana sii daayay what are waa maxay waxyaabahan soo socda ka jawaab marka waxyaabaha intaan ka jawaabin kor is weydiino maxaana la siiyay marka waxaana la leeyahay block of mass cuf leg 0.5 kg yaa wuxuu ku xiran yahay oogo aan islis lahayn moolo ayuu ku xiriirsan yahay taa oo sugnaanteedu la eg tahay 180 newton per meter haddii cufka la barabixiyey 15 centimeter waxaa soo raadisaa kow total energy tamarta guud ii soo raadi ii maxaa lagu helaa waatana waxaa lagu helaa half k amplitude square haye maxaa loo diro kale b waxaa soo raadisaa the speed of block cufka shayga soo raadi when it is 10 centimeter haddii 10 centimeter laga barabixiyey from equilibrium position bardheelitiranka hadduu u jiro 10 centimeter hadduu u jiro maskaxdaada dib u celi markaan soo bilaabayna simple harmonic motion waxaa dhahnay labo displacement haddee kulanto displacementiga weyna wuxuu noo noqon doonaa amplitude hadda maxaa kulmay displacement 10 centimeter iyo mid 15 centimeter yaa noo noqon doona marka maxaa la lahaa amplitude waxaa noo noqon doona 15 centimeter-ka waxaa dhahnaa marka su-aasha saddexaad la weydiiyey maxaa waaye the maximum speed xawaaraha ugu badan laba speed naga rabaa midna waa speedka caadiga waa v waxay la mid tahay k of m amplitude square laga jaray displacement square midna waxaa laga rabaa maximum kan waa naga rabaa oo ah v maximum waxay la mid tahay k of m oo lagu dhuftay amplitude square waxaan filayaa tusaalaha sagaalaad inaan fahanay waxaan aadi doonaa sabuuradda du'aaleed insha Allah taala soo diyaarso buugaaga iyo qalinkaaga iyo calculator-kaaga intaba soo diyaarso hana soo iloobin isoo raac marka tusaalaha sagaalaad ee chapterka koowaad gacanta la tagayna tusaalaha saan hore u soo sheegnay waxay noo qorneed moolo ayaa lagu xiray shay cufkiisu yahay 1.5 kg shayguna wuxuu lahaa mooladuna waxay lahayd xoog moolo sugan oo dhan 180 newton per meter haddii barabixin lagu sameeyay cufka oo 15 centimeter ah waxaa soo raadidaa total energy-ga b sidoo kale xawaaraha soo raadi markuu shayga marayo 10 centimeter barbaxdan c waxaa soo raadisaa xawaaraha ugu sarreeya ee shayga uu ku socday intaasaan loo diray waa kala saaranaynaa marka given iyo requirement oo kala saaranaynaa kadib furfurida tagaynaa marka given maxaana la siiyey mass ugu horey shayga cufkiisu meeqa waa 1.5 kg maxaa kaloo la siiyey
waxaana la siiyey xoogga moolada oo k ah meeqa waay 180 newton per meter. maxaa kale nala siiyey waxaana la siiyey laba displacement ee taalo midda weyn maxaa u qaadanayna mar walba barabaxa weyn maxaa u qaadan jirnay amplitude inuu yahay waa 15 centimeter. sidoo kale x displacementkana meeqa waay waa 10 centimeter. xusuusnaa kan oo 10 ka waxaana lagula siiyey requirementka gudihiisa wixii la siiyey markii wixii loo diray ana wala siiyey markii speedka loo diray waxaana dhahay displacementkiga xawaaraha markuu marayo 10 centimeter soo saar. maxaa naga rabaa marka a total energy oo e ah waa naga rabaa. b waxaan rabaa speed markuu displacementku yahay 10 centimeter. c waxaan naga rabaa maximum speed. qaacidooyinka hore u soo baranay solution aan furfurna marka furfuridii aan galno inta furfurida galin ka hor kan centimeter ku cagar labadan iyo bedel 15 centimeter markii la bedelayo maxaa sameyn jiray boqol loo qaybina markii meter loo bedelayo soo ma waa 0.15 meter. tanna waxaa la mid tahay 10 centimeter loo qaybiyey boqol oo la mid ah 0.1 meter. hadda waa shaqaysan karnaa marka energy maxaa lagu helaa energy qaacidada lagu helo maxay ahayd waxay noqonayd half k amplitude square soo ma half k oo ku dhacsan amplitude square waxaa la mid tahay markaas half k meeqa haysanaa 180 amplitude meeqa haysanaa 0.15 square. energy waxaa la mid yahay marka haddaa aragta halfka kor ku dhufo waxaa dhahdaa halka kor ku dhufay hoose labadan hoos ku dhufo 180 lagu dhuftay 0.15 square loo qaybiyey laba kuwan hooseedu waa hal ku dhufo waa labo. intaas samee marka calculator kaga qaado intaas samee waxaa dhahdaa 180 lagu dhuftay 0.15 oo la square gareeyey loo qaybiyey labo waxaa soo baxaysa marka 2 energy maxaa lagu cabiraa joule laba joule. hadda waxaa xalinay tusaalaha sagaalaad qaybtiisa eeda yaa xalinay energy waxaa noo soo baxay inuu leeyahay laba joule. b isla b waxaa noo diray speed inoo soo raadin. speed maxaa lagu helaa waxaa lagu helaa square root k over m oo ku dhacsan amplitude square laga jaray displacement square. intaas haysan xalina markaas mid walba given loo bedel marka k meeqa haysanaa 180 loo qaybiyey mass meeqa haysanaa 0.5 ay amplitude 0.15 la square gareeyey laga jaray displacement meeqa haysanaa 0.1 la square gareeyey waxaa la mid tahay marka speed waxaa la mid yahay square root 180 waxaa u qaybsaa 0.5 waxaa soo baxayda 360 aye amplitude square 0.15 square gareey 0.15 haddii la square gareey waxaa soo baxaysa 0.0225 0.0225 0.0225 laga jaray 0.1 iyaga square gareey waxaa soo baxayda 0.01 waxaa la mid tahay speed waxaa la mid yahay markaas square root 360 oo lagu dhuftay labaas kala goor marka 0.0225 laga jaray 0.01 waxaa soo baxday 0.0125 0.0125 oo la mid saddex boqol lixdan ku dhufo markaydaas jawaabta ku soo baxday saddex boqol lixdan ku dhufo waa 4.5 square root ka saar 4.5 marka 4.5 waxaa markaas xididka ka saar 4.5 haye 4.5 haddii laga saara xididka waxaa soo baxaysa 2.1
2 2.1 2 هاي معاكم عندنا سبيد متر بير سكند بوجو عمل سماجس جوابته وحياله يسدافي او 4.5 مقصصه كده وحلمته على 0.5 ووجد مركي ايرور رايتن وكجرا او قاد مطبعيه كجرا مركي كذا انسر كبيد وحاجه سنه سبيد كوبلميديا 2.1 2 متر بير سكند السؤال ده حاله نودر سي حاله نودر ماكسيمم سبيد حلو يقال ماكسيمم سبيد ماكسيمم سبيد قاعدين حاجه وهي كي اوف ام او كل عسن امبليتيود سكوير كي اوف ام او كل عسن امبليتيود سكوير هيا كشغينا مرك كي ما قايسنا بقولي سيديت ام 0.5 لو لفتي امبليتيود ما قايسنا عايزنا 0.15 سكوير جرام مرك هنا وصور من كل جود ماكسيمم سبيد بعلامتها يا مرك سدح بقول زيت 0.5 قاي واستحق بقوليا لحدا لو لفتي 0.15 متر سكوير جرام حسبها 0.025 أصبعي وحلمتها أنا مركز أنت وحلمتها أسكوله فوق 0.025 لو تزدح بقوليا لحدا 0.025 225 لو لفتي سدح بقوليا لحدا وعصبها 8.1 سكوير روت 8.1 الله ميدا حيث كسر مركز سكوير روت 8.1 ما يقول ميدا عليه سكوير روت 8.1 وعصبها 2.85 4 6 1 سوغاي 2.5 نعم عندنا ماكسيمم سبيد وسبيد لا متر بير سكند لو عبرها example كاين سيارات ay jabtarka koobaad halkaas ayuu ku eegyahay aad iyo aad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad la socoteen cashirkeena waan idinkaga mahad celinaynaa Bio Academy mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar koowaad waxay idin leedahay aad u mahadsantihiin soo dhawaada waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan diyaar u nahay ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda dugsiga sare inaan ka saacidno maadooyinka scientific-ga waxaad gabagaba noo maray jabtarkeena koowaad ee physics-ka hadduu Alle insha Allah ta'ala kama caajisi doono oo sii wadi doona ilaa ka dhameeyna buugga muqarrarka fasalada kala guud ahaan iyo waa duubi doona insha Allah ta'ala aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waxaan ordaya dugsiyada u aada waxaan ordaya